Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Booqkii ayaa sabab u noqday in ay baaqatay xafladii shaacinta xisbiga cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh. Ninkan ayaa bilowgii hore ogolaa sida loo dhigay hanaanka u qaybsiga xisbiga cusub, laakiin ilaa fil Soomaaliya waxa ay leeyihiin safarka uu dhawaan uu ku tagay waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta ayaa wax badan ka bedelay go'aankiisii hore. Shalay Laftagareen, Sheekh Aadan Madoobe iyo Wasiir Jaamac waxay la kulmeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kulanka kadib labada dhinac waxaa ka yimid fariimo isdiidan, iyadoo Laftagareen ugu dambeyn uu magaalada Baydhabo ku laabtay. La iskuma khilaafsanaa inuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ogolaaday inuu reer Koonfur Galbeed uu siiyo xogayaha guud ee xisbiga, inay reer Koonfur Galbeed markii dambe ay dalbadeen gudoomiye oo ay iska dhaafeen xoghaynta, iyo in markii dambe laga wada hadlay in guud ahaan qaab dhismeedka muranka dhaliyay laga guuro oo laga fakaro nooca kale, sida inuu xisbiga yeesho musharax iyo hal gudoomiye oo hal qof isku ah, iyo in ay noqdaan ku-xigeenada awood siman. Laakiin waxaa lagu kala duwan yahay dhamaystirka kulanka sida uu noqday. Dhinaca kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay sheeganayaan in la isfahmay lana ballamay uuna Laftagareen dhawaan uu ku soo laaban doono magaalada Muqdisho. Dhinaca kale Laftagareen iyagana waxay sheeganayaan mid taasi ka duwan, oo ah in la ismari waayay oo toos loo kala tegay oo aan la isku soo laaban doonin. Taasi beddelkeedana ayagu ay samaysanayaan xisbi ayaga u gaar ah oo ay ku galaan doorashada soo socota. Dadka ka madax bannaan labada dhinac balse sida loola socda xaaladda dalka waxay aaminsan yihiin in Laftagareen uusan ka tagi karin marxaladda Xasan Sheekh Maxamuud, uuna soo laaban doono dhawaan uuna aqbali doono ku biirista xisbiga cusub. Dhinaca kale Qoorqoor iyo Cali Guudlaabe iyaga waxaa la sheegay inaan wax cabasho ah ka qabin sida hawsha u socoto, ayna diyaar u yihiin in ay ka mid noqdaan golaha sare ee hogaaminta xisbiga. Haddaba sidee u aragtay adiga?